qaar ka tirsan odayaasha dhalinyarta iyo aqoonyahanka koonfurta magaalada Hargeysa iyo degmada Salaxley oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa beeniyay in magaalo cusub laga dhisayo deegaanka xawaalka waran cade oo ka tirsan degmada Salaxley sidoo kalena waxay raaligelin ka bixiyeen eedeymo ay hore ugu jeediyeen qaar ka tirsan madax dhaqameedka deegaankaasi wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade waxaana hadaladoodii kamid ahaa iyagoo arrimahaasi ka hadlaya anigoo Caaqil Yuusuf Axmed Caraba waxaan ka hadlayaa arrin yar oo xabaasha waran cade ah oo imaka meherad noqotay badee meesha waanu tagnay waanu soo eegnay cidina lacag nagumay siinin cidina namay diranin waxa laakiin dadka iyo dalkaba lagu xumaynayo ayuun baa nageeyay meesha anagu xalliyaalo waxaan ugu tagnay oo dirgad iyo sandaqad iyo maqaaxi iyo waxba waxaan xabaaliya bal yar ahayn ma arag shirkaygu wuxuu daaran yahay hal qodob oo ah arrin ka taagan xawaalka waran cade degmada Salaxley ayaa sheegay in halka xabeelgalidii magaalo laga sameynayo annaga tagnay meesha wax magaalo laga sameeyo ma jirto xabaal iyo balli baa ku yaala nimanka madaxda ee xukuumadda naga jiran waxa leenahay labada beelood meesha way degan balaayaha ka dhex shidina wasiir waran cadana waxa leenahay abti arrinta deelqaafka ahayd ee media lagu soo mariyay xaal baan ka bixinay odayaasha beesha ayaan ka mid ahay meesha waran cade wax laga dhigay iyo wax magaalo midna kama jiro dadkuna waa dad wada dhashado isku mid ah waxaanu leenahay wixii wax dhibaala ee beeshan ka yimid xaal baan wasiirka ka siin taageersanahay oo diidanahay wasiirka meel laga dhacay ee uu abtiganay waxaan leeyahay xaal baan ka siinay goobjooga Xasan Suleymaan Harun on Cable TV Hargeysa.